وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروستي أنكو قادنيني قصص في القرآن الكريم، قصوينك إلهي وكغور رمي كتاب كيس كريم كأه. waxaan soo qaadanaynaa ayuha alaxibatu alkiraam maanta qisadii baqaratu bani israa'iil, sicii reer banu israa'iil ayaan soo qaadanaynaa. sida uu warinayo ama laga warinayo ibn cabbaas iyo cubaydata salmaani iyo abulcaaliya iyo mujaahid iyo hayruhum, waxay leeyihiin nin reer banu israa'iil ka mid ah, reer bani israa'iil nin ka mid ah oo ilaahay uu hanti u siiyey iyo xoolo badan lahaa ayaa jiray. ninkaasi wax ciyaala ma lahayn, hanti badanna wuu lahaa. waxaa jiray wiil ama dhalin uu adeer u ahaa ayaa jiray. waxay doonayeen inay dhaxlaan oy xoolihiisa iyo hantidiisa inay qaataan, laakiin ilaahay ninkan cumrigiisii ayuu u dheereeyey, da'dii buu ilaahay u dheereeyey. sida awgeed way raagsadeen intuu ka dhimanaya ninkani. maalin maalimaha ka mida ayuu midi adeerkii dilay, kadibna meydkiisii buu qaaday, dad kale ayuu agdhigay. kadibna isagoo qayliyaya ayuu yimid. adeerkii baa la dilay, dadkanaa dilay, buuq iyo rabshad ayuu meeshii ka riday. dadkii way isku xanaaqeen, seefaha la isku qaatay, in la islaayo oo la isdilo ayaa loo dhowaaday. laakiin waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil, maxaan u dagaalamaynaa oon dhiigga iskaga yaacinaynaa oon seefaha iskugu qaadanaynaa? nebi muuse ayaa jooga meesha, maan u sheegna arrinta, maan u bandhigno, maan iskula tagno, maan dacwadayna u gudbinno. nebi muuse loo yimid calayhi assalaam, arrintii baa loo sheegay. nebi muuse waxa uu yidhi in yar isuga. nebi muuse wuu tukaday, ilaahay buu baryey. kadibna ilaahay wuxuu amray nebi muuse calayhi assalaam inuu dadkii u yimaado oo u sheego siday wuxuu jiraan. waxa uu ilaahay uu ku yidhi nebi muuse, waxaad ku tiraahdaa reer banu israa'iil sac qala. nebigii markuu u yimid oo ku yidhi ilaahay wuxuu ini amrayaa inaad sac qashaan, way la yaabeen. ilaahay baa ka warramaya, waid qaala muusaa liqowmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara.
إلهي وحو إني أمر يا أبو يدي نبي موسى أن تذبحوا بقرة سعنا قشان سع قلة قالوا أتتخذنا هزوا وحيد هذا المجاس أيان نجيا لنا ساعة ما نيسي ساعة وحانو كل إنك الحكم ليك بال إسكو هايستا أوف بال الدلي شاك نو شاك إلهي نو دي أدقنا وحلا هاي الناف قلع نبي وحا يري قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلهي أيان كم قليا إلهي كهوس قليا إنا نقضو ضدك جاهلين تا إنا كمن نقضو ضدك كل الليلة كجيس جيسة إلهي ما كم قليا لكن إلهي وحو إني أمريا إنا تستعقشان مركاسي وحي لهذين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ربك دعوة ربنا إسرائيل سيدي أمدح أتكاين وحي لهذين ربك موسى يعني ربك قد ما بقى هبه وحيليه موسى ربك وحاد بردا ونوي ديسا ما هي هالنوع عدايو محايتها هاي سعو محوية هاي واسكيك هاي درسمين ساعة نو أبتري ما كالا قرنينو قال وحا يري إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر وحا يري إلهي معها سعدق معها وين أو قبودي معها ولا بكر متقالنا أو يرنا معها عوان بين ذلك انت سيؤدى حيسا من يرى أو قالي ير معها من وينو دق معها ويؤدى حيسا فافعلوا ما تؤمرون وروحان لأمر يوياله أو سمية قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها reer banu Israa'iil sida ummadaha adkaayeen waxay yiraahdeen rabbiga noo bari ma lawnuha midabkeegu muxuu yahay inay qalaan ayay ahayd neef qala la yiri sa'um qala la yiri inay sa'um qalaan bay ahayd noo cadee waa maxay midabkeegu waa maxay da'deedu waa sidee maxay qabataa waxaasay la yimaadeen hadradaas قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها midabkeegu waa sidee qaala waxa uu yiri innahu ilaahay yaqulu waxa uu leeyahay innaha baqaratun safraa wasa jaale waa mid awla sa'awla weeyaan jaal markaasay waxay yiraahdeen waliba nabigiiba sii wada waxa uu yiri faaqi'u lawnuha midabkeegu waa saafi wax baraxa kuma jiro waliba tasurru naadiriin dadka eegaya fiirinaya way ku rayaaqayaan way ku farxayaan sida isku haysato hilibkeega xooggeega reer banu Israa'iil madax adeegooga way sii wadaan qaaluu ud'u lanaa rabbaka yubayyin lanaa ربنا نوبري النوع عدايو ما هي إن البقرة تشابه علينا لقضوا وإسكيك هاي الدرسمين لقضوا وإسكيك هاي الدرسمين إسكو وكلا قرن لنا هاي النوع كالعدايو وليبا وحيد هدين ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وانهنونينا وان قرنينا مركا هنو كلا عدايو هنو سمعنايو قال إنه يقول وحاوليه إلهي أيولي إنها بقرة لا ذلول وسع عن شقال الليل وشقاء عن لو تلقلين أو لبرين تثير الأرض أو قدين للك ما فاشتا
walaa tasqi alxarf dhulkana ma beerto oo ma waraabiso dhulka laguma qodo lagumana beero lagumana waraabiyo musallamatun ceeb oo dhanna way ka fayowdahay way ka badbaaday ceeb oo dhan laa shiyata fiiha wax bara male neefka sici wax bara uu leeyahay oo jirka midabkiisa ka duwan male waa isku wala mid qaaluu al'aana ji'ta bilxaq imikaad xaqii la timid bay yidhaahdeen neef bay garanayaan sidaa loo tilmaamay calaamaadkaa wata qaaluu al'aana ji'ta bilxaq xaqii imikaad la timid way raadiyeen marka waxay heleen sac ayay heleen sacaasi ay soo heleen wiil yaroo agoona ayaa lahaa sacaas waxaa uga dhintay waalidkii oo qof wanaagsan ahaa ayaa uga dhintay sicii bay soo raadiyeenoo waxay yidhaahdeen saca naga iibi ma iibinayuu yidhi way ku adkaysteen in badan bay ka codsadeen waa diiday markii dambe waxa uu yidhi sacaas miisaankiisa oo dahaba uu ku qaaliyeeyey markii dambe way iibsadeen way ku qasbanaayeen sicii ayaa loo miisaamay weliba miisaankii waxbaa loogu daray sacaasi miisaankaasi dahabka ay ku iibsadeen ayay qaleen neefkii bay la yimaadeen way qaleen neefkii marka ay qaleen ayuu ilaahay waxa uu leeyahay faqulna dribuuhu bibacdiha neefka barhkii soo qaada barhkii ama laf ha noqdo ama hilib ha noqdo neefka wax ka soo qaada oo meydka ku garaaca faqulna dribuuhu bibacdiha meydka ku dhufta meydkii baa sara kacay marka waa ninkii la dilay isagoo oo dhiigga u ka yaacayo ayuu sara kacay markaasaa lagu yidhi yaa ku dilay wuxuu yidhi aawo wiilkan adeerka uu ahaa ninkaasaa i dilay kadibna wuu dhacay isaga oo meyda wuu sheegay wuu khashifay ilaa culummada qaarkood waxa ay ka yidhaahdeen ninkii naxdin markii wiilkii yaraa farta lagu fiiqay naxdin buu isagiina la dhintay sacaasi suurad idil ayaa la yidhaahdaa suuratu lbaqara xikan badan baa ku jira qisas badan ayaa ku jira waxaa ka mida oon ka faa'iidaynaa reer banu israa'iil siday u madax adkaayeen xaqa u diidanaayeen nebiga ugu madax adkaayeen su'aal baa la weydiinayaa arrin baa la amrayaa su'aal kale ka keenayaan arrin kale ka keenayaan amarka ilaahay markuu ilaahay amar gooyo rasuulku markuu amar gooyo waa in lagu degdego in wax la sii baadhbaadha maaha haddee markiiba sac ay qaadan lahaayeen amarka ilaahay wuu u fudaydin lahaa waa laga aqbali lahaa arrinta labaad jees diinta laguma jeesjeeso diinta in lagu jeesjeeso waa xaaraan atattakhidunaa huzuwa qaala acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin ilaahay ayaan ka magan gelayaa inaan jaahil noqdo oon dadka ku dheeldheelo ilaahay ayaan ka magan gelayaa waxaa kaloon ka faa'iidaynaa ilaahay inuu dadkan soo saari doono qiyaamaha bacthi iyo nushuur inuu jiro dadkaasi waxaa loo caddeeyey ilaahay siduu wax u nooleeyo ilaahay siduu wax u jirsiiyo ayaa dadkaasi loo caddeeyey axibbatii fillaah duruus iyo cibar badan ayaa ku jira suuratu lbaqara waa suurad daaweyn ee labada juz iyo barhka ah waa suurad ah in la iskortaago micno badan iyo duruus badan lagala soo baxo allaahumma yaa khayra man su'il waajwadu man acطaa waakramu man cafaa waacdamu man gafar waacdalu man xakam waawfaa man wacad waabsaru man raaqab waasracu man xaasab
وأرحم من عاقب وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عبد وأولى من دعي وأبر من أجاب. اللهم كن للمسلمين والمستضعفين في كل مكان فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وتول بنفسك أمرهم. اللهم ارفع رايتهم، اللهم اللهم أكبت عدوهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وردهم إليك ردا جميلا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.